hogaamiyihii dhanka siyaasadda ee ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta Ismaaciil Haniya ayaa lagu dilay Teheraan aroornimadii hore oo maanta oo Arbaca ah sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Iiraan. dhanka kale bayaan isna ka soo baxay Xamaas ayaa lagu xaqiijiyay in Ismaaciil Haniya lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah oo ka dhacday magaalada Teheraan ee caasimadda Iiraan. dilka sarkaalka hogaamiyihii Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa waxaa loo adeegsaday gantaal laga hagayay oo lala beegsaday xilli uu ku sugnaa hoygiisa gaarka ee Teheraan sida ay sheegeen ila wareedyo ka soo baxay Sacuudiga oo ay heshay warbaahinta Al-Hadaas. warbaahintan ayaa ku warantay in gantaalka uu ku dhacay dhismaha abaara labadii habeenimo xilliga maxalliga ah. Faris News oo xidhiidh la leh ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sidoo kale sheegaysa in Haniya uu ku sugnaa guri ay degganaayeen dagaalyahano kale waxaana lagu dilay madfac hawada ka yimid. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa cambaareeyay dilka hogaamiyaha Xamaas isagoo intaasi raaciyay in marnaba aan la ilaabi doonin dadaalkii uu u galay xoreynta dadka reer Falastiin. madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegay in ay Israa'iil ka shalayn doonto dilka fulaynimada ahaa ee Haniya isagoo intaasi ku daray in Iiraan ay difaaci doonto madaxbannaanideeda dhuleed iyo sharafteeda. bayaan ay soo xiganaysay wakaaladda wararka ee AFP ayuu madaxweynaha Iiraan ku tilmaamay Haniya inuu ahaa hogaamiye geesi ah. hogaamiyihii siyaasadda Xamaas oo fadhigiisu ahaa dalka Qatar ayaa booqasho ku tegay Teheraan si uga qayb galo dhaarinta madaxweyne Mas'uud Pezeshkian. hogaamiyaha ugu sarreeya Iiraan Ayatollah Ali Al-Khamenei ayaa sidoo kale sheegay in aargoosiga dilkiisa ay tahay waajibka Teheraan isagoo intaasi ku daray in Israa'iil oo aan sheegan mas-uuliyadda kasbatay sababaha ciqaab adag. madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa magaalada Teheraan ee dalka Iiraan kula kulmay Ismaaciil Haniya hogaamiyihii kooxda Falastiiniyiinta ee Xamaas. kulankaasi oo dhacay shalay oo Salaaso ahayd. inta badan dowladaha dunida ayaa dhaleeceeyay dilka hogaamiyihii garabka siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya kaas oo ka dhacay dalka Iiraan. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken oo si kooban uga hadlay dilka hogaamiyihii siyaasadda ee Xamaas ayaa yidhi tani waa wax aynaan ka warqabin mana ku lug lahayn. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa dilka hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya ku tilmaantay dil siyaasadeed oo aan gebi ahaanba la aqbali karin sida ay sheegtay warbaahinta dowladda ee dalkaasi. sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa cambaaraysay dilka hogaamiyahaasi oo ka dhacay Teheraan iyadoo weerarka dilka ku tilmaantay in looga gol leeyahay in lagu baahiyo dagaalka Gaza oo laga dhigo heer gobol. waxaana weli soo taraya falcelinta ku saabsan dhimashada Haniya. bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayay ku tilmaantay dembi aad u foolxun, koror halis ah iyo xadgudub badheedh ah oo ka dhanax sharciga caalamiga ah iyo kuwa bini'aadantinimada. waxa ay ka digtay in dilkan iyo habdhaqanka taxadar la'aanta ah ee Israa'iil ee sida joogtada ah u bartilmaameedsanayso dadka rayidka ah ay horseedi doonto in gobolka uu galo fowdo ayna wiiqdo fursadaha nabadda. Israa'iil weli kama ayna jawaabin dhimashada. haddaba kumuu ahaa Ismaaciil Haniya? bishii May 2017 Xamaas ayaa Ismaaciil Cabdisalaan Axmed Haniya u dooratay madaxa xafiiska siyaasadda ee kooxda isagoo bedelay Khalid Mashaal. waa siyaasi Falastiini ah wuxuu soo noqday ra'iisul wasaaraha maamulka Falastiiniyiinta 2006 ilaa 2007 kadib markii ururka Xamaas uu ku guuleystay inta badan kuraasta doorashadii sharci dejinta ee Falastiiniyiinta 2006. Haniya waxa kale oo uu noqday hogaamiyaha dowladda dhabta ah ee marinka Gaza 2007 ilaa 2014. Ismaaciil Cabdisalaan Axmed Haniya waxa uu ku dhashay xerada qaxootiga Shaati ee Qasar 29 January 1962 waxaana dhalay waalidiin ka soo qaxay magaalada Asqalaan kadib markii la aasaasay maamulka Israa'iil sanadkii 1948. Haniya waxa uu wax ka bartay macadka Al-Azhar ee Gaza. waxa uu ka qalin jabiyay Islamic University Gaza intii uu jaamacadda dhiganayay 1983. Haniya waxa uu ku biiray ururka ardayda Islaamka oo hordhac u ahaa Xamaas sanadkii 1987 ee uu ka qalin jabiyay. waxa uu bilo u ahaa kacdoonkii shacabka Falastiiniyiinta ee ugu horreeyay ee lagaga soo horjeeday gumaystaha Israa'iil kaas oo loo yaqaan intifaadka koowaad iyo aasaaska ururka Xamaas oo ahaa urur rasmi ah. maamulka Israa'iil ayaa Haniya xabsiga dhigay 18 maalmood markii uu ka qayb qaatay mudaharaadyo looga soo horjeedo qabsashada. sanada kadib 1988 waxaa mar kale la xidhay 6 bilood. 3 sano oo kalena wuxuu ku qaatay xabsiga 1989 isagoo lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay Xamaas.
kadib markii la sii daayay Israa'iil waxa ay Haniya u mastaafurisay koonfurta Lubnaan isaga iyo madax kale oo sare oo Xamaas ah halkaas oo sanad ku qaatay kadib markii heshiiskii Oslo ay wada socdeen Israa'iil iyo ururka xoreynta Falastiin waxa uu dib ugu soo laabtay Gaza waxa kor u kacday darajooyinkiisa dhaqdhaqaaqa dhexdiisa isagoo ahaa gacan yaraha asaasiga Xamaas marxuum Sheekh Axmed Yaasiin sanadkii 1999 markii uu qarxay intifaadkii labaad Haniya waxa uu xajistay booskiisii mid ka mid ah hogaamiyaasha siyaasadeed ee Xamaas waxa uu galay kaalinta saddexaad kadib Yaasiin iyo Cabdulcasiis Al-Rantiisi Haniya iyo Yaasiin waxa ay ka badbaadeen isku day dil sanadkii 2003 isku day dil oo fashilmay oo ay Israa'iil ku doonaysay inay ku disho weerar dhinaca cirka ah oo ay ku qaaday guri dabaq ah oo ku yaala bartamaha magaalada Gaza oo ay ku kulmeen labada hogaamiye dhowr bilood kadib Yaasiin oo ahaa qof naafa diyaaradaha helikobtarka ee Israa'iil ay beegsadeen oo ay dileen xilli uu ka soo baxay masjid uu ku tukaday salaadii subax ee hore Haniya waxa uu caan noqday sanadkii 2006 markii uu Xamaas ku hogaamiyay doorashadii sharci dejinta ee uu ka guuleystay dhaqdhaqaaqa Fatah oo xukunka hayay in ka badan 10 sano inkastoo uu ra'iisul wasaare ka ahaa maamulka Falastiiniyiinta muddo kooban diidmadii beesha caalamka ee la shaqaynta Xamaas ismariwaaga iyo gacanka hadalka labada dhinac ayaa aakhirkii horseeday in la burburiyo dowladii midnimada ee 2007 kadib markii Xamaas la wareegtay gacan ku haynta marinka Gaza Haniya waxa xilka ra'iisul wasaarenimo ka qaaday madaxweynihii xisbiga Maxamuud Cabbaas laakiin wuxuu weli ahaa hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa marinka Gaza dhowr jeer Haniya wuxuu sheegay inuu aqbali doono Falastiin ah oo laga dhiso xuduudaha 1967 oo ay caasimad u tahay Qudus waxa kale oo uu sheegay in xukuumadda Xamaas ay diyaar u tahay inay la shaqeyso dowladaha reer galbeedka ee wacadka ku maray inay taageerayaan xuquuqda Falastiiniyiinta intii uu socday dagaalkii 2014 Israa'iil ay ku qaaday Gaza laba wiil oo wadeer u ahaa Haniya ayaa lagu dilay qaybo ka mid ah gurigiisana waxa lagu burburiyay duqeymaha Israa'iil geysatay Haniya ayaa loo doortay madaxa xafiiska siyaasadda ee Xamaas 2017 isagoo bedelay Khalid Mashar bishii Disembar 2019 Haniya waxa uu ka tagay marinka Gaza waxaanu bilaabay in uu ku noolaado Turkiga iyo Qatar waxaana uu fududeeyay awoodiisa in uu matalo Xamaas booqashooyinkiisii ugu caansanaa waxaa ka mid ahaa aaskii Qaasim Suleymani oo ahaa taliyii ugu sarreeyay ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan kaas oo lagu dilay duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka bishii January 2020 iyo caleemasaarkii madaxweynihii Iiraan Ibrahim Raisi bishii August 2021 dabayaaqadii bishaasi markii ciidamada Mareykanku ka baxeen Afghanistan Haniya waxa uu la hadlay hogaamiyaha Taliban si uu ugu hambalyeeyay dhamaadka joogitaanka Mareykanka ee dalkaasi Haniya waa xaasle waxaanu dhalay 13 carruur ah xaaskiisa waxaa lagu magacaabaa Amal Haniya gabdhaha walaalihii oo kala ah Khuluudi Leyla iyo Sabaax waa muwaadiniin Israa'iil ah waxayna ku nool yihiin tuulada Baaduun ee Tal As-Saabi ee koonfurta Israa'iil waxa kaloo jira gabadh saddexaad oo lagu magacaabo Sohila Cabdilsalaam Axmed Haniya oo Ismaaciil la dhalatay laakiin magaca walaalkiis ayaa weli ah sir dhow oo la ilaaliyo bale awaalyo gaar ah oo ka soo baxaya baaritaanada internetka ayaa soo jeedinaya in Sohila Cabdilsalaam Axmed Haniya uu noqon karo walaalkii Haniya si kastaba ha ahaatee sheegashooyinkani ma laha cadaymo aqoonsiga walaalkii ayaa weli ah mid aan la helin arrinta murugada leh oo ka mid ah taariikhda qoyska Haniya ayaa ah geerida naxdinta leh ee walaalkii kaasoo la sheegay in lagu dilay duqeyn cirka oo Israa'iil ay ku qaaday guriga qoyskooda oo ku yaala Gaza bishii Oktoobar 2023 14 xubnood oo qoyskiisa ah ayaa lagu dilay weerar cirka oo Israa'iil ay ku qaaday qoyskiisa gurigooda oo ku yaala magaalada Gaza dadka la dilay waxaa ku jiray walaalkii iyo wiil uu adeer u ahaa bishii Noofambar 2023 gabadhu awoow u ahaa ayaa la sheegay in lagu dilay duqeyn Israa'iil ka geysatay magaalada Gaza isla bishaas dabadeed wiil uu awoow u ahaa ayaa lagu dilay weerar Israa'iil fulisay dilka Haniya ayaa ku soo beegmaya wax ka yar 24 saacadood kadib markii 3 qof oo ay ku jiraan 2 carruur ah la dilay 74 kalena lagu dhaawacay weerar Israa'iil ay ka geysatay magaalada Beirut ee caasimadda Lubnaan Israa'iil ayaa ugu yaraan 39,400 oo qof ku dishay duulaanka Gaza iyadoo ay ku dhaawacmeen 9,996 qof kuwaas oo u badan carruur iyo haween hogaamiyaha muhiimka ahaa ee laga dilay dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiinta Ismaaciil Haniya ayaa la qorsheeyay in Jimcaha lagu aasay magaalada Dooxa ee dalka Qatar hogaamiyayaal tiro badan oo caalamka ka socda ayaa la filayaa inay ka qayb galaan aaskiisa